صمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا. dadka inta badani waa wax ma garato waxaanaanay garanaynin waa maxay waa cilmiga qiimaha leh baanay garanayn oo muxuu yahay kuwa ilaahay yidhi inta badani waxba garan mayso cilmaa loo sugay haddana oo waxa la yidhi yaclamuuna ظaahiran min alxayaati dunya waxba garan maayaan baa ilaahay yidhi markaase haddana ilaahay wuxuu yidhi waxa ay garanayaan adduunka muuqaalkiisa sare ayay garanayaan يعني إن أدوك مقال كيس سرق جرتين وحقيقة دي سجرن ويدو آخر جرن ويدو إلهي جرن ويدا أقون تاسي أقون قيمة لماها وحي أقون قيمة لتهي مركي تكاللا صعطة أقون قيمة لتهي أما هذا ظاهر الحياة الدنيا كوكوبناطو هذا كوكوبناطو أنت حوله بيغاني حوله وحعن وحدل وميل سيحو دي حوله بيتا وسميا جريد كاغو مركاو حمر يا محي لفلكي حوله كفكريا بد كفكريسا يدو إلهي بني آدم كرامة لك هادقي يدو إلهي سبحانه وتعالى بني آدم كرامة لك هادقي أياد وحا كوكوبتي أركتي دادا انتو حوله بأركيين حوله باباه الكرامة كعرران هنوا عنانو ضغطقان وانا ترمان وانا سحدا هذا واحد فكريسا انت هتهي انت سيقون معها سأوجد با إلهي وحولي كواس وحبا قرن مايان هذا وحا الذي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا waxay garanayaan adduunka muuqaalkiisa sare oo adduunka xaqiiqadiisu waa maxay xaqiiqadiisu waxa weeyaan qof rumaysan meeshan inuu joogo in la itixaamo ha huwa xaqiiqatu dunya wuxuu arkayaa qofka mu'minkii dhab ahaan adduunku inuu yahay meel lagu itixaamayo dabeetana imtixaankaasi aakhiro lagu abaalmarinayo sida awgeed buu arkaa adduunkan iyo waxa yaallo dhan imtixaan uu ka gudbayo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam intuu seexday oo salli yar ku seexday bay dhinaciisa ku dhegtay markaasay saxaabada yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo kisra iyo nimankii boqorrada ana waxan bay haystaan adigana adduuna wamaali waalid aniga adduun maxaana kala galay buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam aniga adduun maxaana kala galay sow lama midihuu nin geed intuu hadhsaday dabeetana ka kacay geed haddaad hadhsanayso wax ka dhisa miyaad ka fekertaa mise ku naso unda waqtiga aad nasanayso ku nasaad ka fekertaa adduunka qofka mu'minkii wuxuu u arkaa meel uu waqti kooban joogayo 50 sano 60 sano 70 sano 80 sano wuxuu doonaa noqdo waa waqti aad u kooban wuxuu u arkaa waqtigaa kooban inuu yahay qof imtixaan ku jira wuxuu u arkaa waqtigaa kooban waxa uu sameeyey ku jawaabo imtixaankaas kaga jawaabo inuu yahay aakhiro markuu tago wax lagu abaalmarinayo saasi daraaddeed ninka u arka adduunku inuu yahay meel aakhiro loo beertana xaqiiqatu dunya buu fahmay ninka aan taa fahmin ee mooda in iyada lagu raaxaysanayo iyada la joogayo hadhowna aad ka dhimatana waa daahir min alxayaati dunya walidaalika xataa kuwa gaalada ah qaar badan oo gaalada ka mid oo caqli lahaa qaybaan filosofiska qaybo badanoo u badanay nolosha markay eegeen ay aakhiro garan waayeen ee waxyigii raaci waayeen waxay u arkeen noloshu inay cabaftay noloshu bay yidhahan waa ciyaar haye maxaa talaa markaa waa iska fadhiisanaya buu leeyay nolosha waxba kama rabo oo waa maxay wuxuu ku leeyay dee dagaal aan arkaya gabagabadiisa maxaa ka gelaya haddaad dagaal tidhaahdo waan gelaya laakiin aad ogtay inaad jabayso dee si macnale u geli maysid ila kulleyba waad ogtay natiijada inaad soo jabayso waad ogtahay waxay leeyihin nolosha tani wax kastoo aan qabto soo dhiman maayo un haddana haa waad dhimanaysaa dan maxaan wax ka qabanayaa buu ku leeyahy why marka waxay u arkaan noloshu inay nothingness tahay inay worthless tahay inaanay qiimo lahayn inaanay waxba ahayn si awgeed inaan wax cuno inaan isdilo inaan dadka dilaa waa isku mid buu ku leeyahy waayo nolosha wuu arki waayey wixii ka dambeeyey aakhiruu arki waayey ilaahay buu arki waayey saa daraaddeed intan soke in lagu wareero maaha buu leeyahy ilaahay kuwa wuxuu ku tilmaamayaa iyo kuwa ku mashquulsan isku daro yaclamuuna daahiran min alxayaati dunya nolosha muuqaalkeedii bay garteen laakiin qasdigeedii iyo xaqiiqadeedii may garanin wahum can ilaakhirati hum gaafiluun baa ilaah yidhi nolosha aakhiro
ayaa ghafla kaga sugantay ayay moogan yihiin ghafladu waa qofka oo wax ay mudnayd inuu ku intibaaho arko oo garto garan waaya inaad wax ilowda waa mas'alo gaara ilowshiyuhu waa nicma min nicam illaah dadku waa laga yaabaa inay dhib u arkaan cilmigii aan bartay waan ilaabay ka waan ilaabay war waa nicma dhan kale marka laga eego waayo haddaanad wax ilaabayn maad noolaateen haddaanad wax ilaabaynin maad noolaateen adduunka wixii dhibku soo maroo dham hadday madaxaaga ka bixi waayaan saad noqon lahayd maad seexateen maad gamaa waxaad cadho soo martay oo dhan haddaad ilaabi weydo saad noqon lahayd laxdadii aad cadhada dareemaysay ama dhibta dareemaysay haddaad ku suganto marnaba maskaxdaada aanay ka baxayn you can't survive maad noolaateen waad waalan lahayd inaad markaa mushkilaadka iyo problemka iyo wixii ku soo maroo dhan aad ilowdaa waa min anicma waa nicmo alla ku siiyey idan taa maaha taa laynoo tilmaamaya qur-aanka meel laba kuma taalo ha ilaabina wax laakiin maxaa ku yaala walaa takun min alghaafiliin ghafladu waa maxay waa dhoohani waa moogani waa waxa ay ahayd agtaada inuu qiimo ku yeesho waad hilmaamto isilowsiisay aad mudnaantii siin weyday kuwan ilaahay wuxuu leeyahy wahum can ilaakhirati hum ghaafiluun aakhiro kuwani way moogan yihiin iyadoo noloshoo dhammi tilmaamaysa inay dhammaanayso noloshoo dhan baa calaamad u ah aakhiro wax walbabaa tilmaamaya inaanay noloshani sida tan ku soconaynin laakiin ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala kuwa kale aakhiray ghaafil ka yihin saa ogeed ayuha alaxiba ilahay wuxuuna leeyahy maa cindakum yanfadu wamaa cinda allahi baaq walanajziyana aladiina sabaruu ajrahum biaxsani ma kanuu yacmaluun من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وروح أكتينا يا لوا ضمانا يا أنبا إلهي لي وحي إلهي أكتي سيالانا وواريا كوي صبري na ajarkooda waa siinaynaa baa rabbi leeyahy qof kastoo camal wanaagsan samaystay labiyo dhadig kuu doona ha ahaado mu'mina kaa nolol quruxle baa noolaynaya baa ilaahay leeyahy waana abaal marinaya idan ayuha alaxiba almaalu walbanuuna ziinatu lxayaati addunya ilahay wuxuu leeyahy xoolaha iyo caruurta iyo waxa kani waa noloshan quruxdeeda laakiin xaqiiqadeedii maaha والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا باقيات كقوة هرية فسرين تقار وحيد هذا وتصبيحات كان يا سبحان الله يا الحمد لله يا لا إله إلا الله يا والله والباقيات الصالحات قوة هرية وارية صالحة يا إلهي أكتيس ثوابا وحوق لور رجينيا إذا قوة ساقيمة حدبتها هيولتشرة aakhiro uma kala ajar badnin sidaynuu kala caruur badanay adduunka masaynuu kala dumar badanay amasaynuu kala xoolo badanay amasaynuu kala daara badanay aakhiro waxa qiimo ah sidaynu ilaahay subxaana wa tacaala dunida markaynu joognay ugu weynaynay saynu u cibaadaysanay saynu ugu kala dhoweyn taas baa qiimo leh ama miisaankana ah in qofka lagu qiimeeyo waxa jeebkiisa ku jira waa miisaanka kuwaan ilaahay rumaysnayn إلهي بقرآن كوحكولي قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا كوا قالوا بيبا مؤمنين توحكوا يلاهدان لبدنا كوحود كوحديبا خير مقاما وأحسن نديا كوحدين هبا قلف في عن أو مقام في عن أو كم في عن إلهي وحلي وكما هلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا والرئيا oo imisaan dad hore soo halaagay baa ilaahay leeyahay oo kuwan ka alaab badnaay oo ka muuqaal fiicnaay oo ka xoolo badnaa imisay ka soo tageen baa ilaahay leeyahay dunidatan qul man kana fi dhalalah فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أيها الأحبة إلهي أدونكم بدبر كيسا وحكوت المامية أفرأيت إن متعناهم السنين
كورما با إلهي لي بني آدم كان هدان أراحينا سنة يروكوبا هدان وحسينه ثم جاءهم ما كانوا يوعدون دبتنا ويمادا وحي الله يباهي وقيري عذاب يوحي كمدا ما غنى عنهم ما كانوا يمتعون با إلهي وحي دوني دا يكسر راحيستين وحبك الدقي ما يسبع إلهي لي سبحانه وتعالى. إذن أيها الأحبة waxa aynu qabanaynaa waxay ku xidhan tahay waxa aynu rumaysanay waxay ku xidhan tahay shaygan qiimihiisa sidaynu arkayno ilmaheenu hadduu aakhira arki waayo tuko adun baa la daba taagan isaga salaadu qiimo uguma fadhido adun baa la tuko laakiin tukashadu qiimo uguma fadhido waayo qiimaha kamaynan dhaadhicin hadduu qofku aakhira arki waayo wax badan oo adduunka lagu hayaa qiimo uguma muuqanayaan إلهنا وحنا لا وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب ورأدونك كلماءها لهو وحيد هذا وواحد دتك واوينكم مدداشو لعب كنا وحنا عرفت عيارته يعني وحلقوا مدداشا يا عيار مو يعني وح كلام ما هبا إلى هيري وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وردارت آخران نلش أهبا إلى هيري هذا نلل ربطان ودار الآخرة أما ترى دونك أجوكتان ووحلقوا عيارا بي لم يتهي